Safiirka UK iyo madax kale oo ka socota dowladda Britain ayaa maanta waxay magaalada Hargeysa kula kulmeen ganacsatada waaweyn iyo madax ka tirsan hay'adda Save the Children. Kulankan ayaa looga hadlay arrimo muhiim ah oo la xidhiidha kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha saameynaya horumarka dhaqaalaha iyo sidoo kale dhiirigelinta maalgashiga qurbo-joogtu ay ku sameeyaan wadamada ay ku dhasheen, iyagoo ka qaybgalayaashu kulankan carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay iskaashiga u dhexeeya dowladaha iyo ganacsatada si loo horumariyo oo loo abuuro horumar dhaqaale oo xooggan mustaqbalka fog. Cabdirashiid Ducaale oo ah maamulaha guud ee Dahabshiil Group isla markaana ka mid ahaa ganacsada kulankani ka qayb galay ayaa waxa uu tilmaamay baahida loo qabo iskaashi xooggan oo ka dhex dhaca ganacsatada dowladaha daneeya horumarka ee ay ka mid tahay dowladda UK, hay'adaha caalamiga iyo ganacsatada, isagoo tibaaxay inay muhiim tahay in dowladda UK iyo hay'adaha caalamiga ahi ay la shaqeeyaan ganacsatada si ay fursado badan oo shaqo abuur ugu sameeyaan dhalinyarada iyo haweenka, sidoo kalena loo gaadho isku filnaansho cuntada iyadoo la horumarinayo beeraha maxalliga iyo kalluumaysiga. Ka qaybgalayaasha ayaa ku booriyay dowladda UK inay fududeyso lacag dirista qurbo-joogta Soomaaliyeed si ay maalgashi ugu sameyn karaan wadamada ay ka soo jeedaan. Waxay sidoo kale tilmaameen baahida loo qabo in bangiyada UK, shirkadaha lacagaha dira iyo hay'adaha adeegyada maaliyadeed bixiya ee dalka gudihiisa iyo dibadduba isaga kaashadaan sidii loo fududeyn lahaa lacag dirista, loona xoojin lahaa fursadaha maalgashiga iyo dhaqaalaha iyo weliba ganacsiga. Waxaa sidoo kale lagu falanqeeyay kulankan dhiirigelinta ciyaaraha fudud oo ay ugu horeeyaan tartamada orodka, kuwaasi oo dhiirigelin kara midnimada iyo isdhexgalka bulshada iyo horumarka. Ka qaybgalayaashu waxay muujiyeen sida ay muhiim u tahay taageerada ganacsada ee lagu xoojinayo caafimaadka, kor u qaadida nabadda iyo xasiloonida. Kulankan ayaa wuxuu ku soo dhammaaday si wanaagsan iyadoo hoosta laga xariiqay muhiimadda ay leedahay iskaashiga iyo joogteynta wadahadallada si culays loo saaro sidii loo xoojin lahaa dhammaanba wixii keenaya horumarka iyo shaqo abuurka.